Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada podcastigeena xidid. Magacayga waa Maryam. magacaygu waa Naciima, waxaan ahay Maryamo hooyadeed. Dhammaan waa idin salaameynaa qof kastoo na daawanayo. Waqtiga Allah noo wada barakeeyo. Soo dhawaada. Mawduuceena maanta waa gudagalaynaa wuxuu qaabilsan yahay inaan Maryamoy aan maaragtay isla falanqeyno aan ka wada hadalno. Waxa aan ka hadlayno wax oo daliilaad ma aha oo dhayno saas ayaa daliil u esaan ayaa daliil u kaliya aragti ayaan ugu talagalnay barnaamijkan inaan ku daadahayno hadduu Ilaahay yiraaho khibrad weyn oo Maryam iyada markaas ku filan oo weyn ma hayso, laakiin inta ay haysay aragtideeda iyo tayada oo la isku kabay ayaa muuqaalkan insha Allah ugu sheekaysan doonaa. Muuqaalka mawduuciisa wuxuu noqon doonaa oon rabno inaan ka wada sheekaysano guurista kow, geediga labo, Guurista kala sii bixi. waan kala bixinaa yacni saddexda marka hore oo mawduuc u qaabilsan yahay rab inaan sheego. Waa ogaala guurista waxaa loo qaadan karaa qof kaligiisa oo meel guuraayo kale. Caadi waa maho. waa sharxi doonaa, waa sheegi doonaa. Guurista waxaan ka wadaa tusaale ahaan qoys oo kaleento. Wadan degan maanta dhan la qabsiga uu ku adag yahay, haddana wadan kale u guuraayo. Kan kanaa ka fiican, kan kanaa ka fiican. Sidoo kale waxay noqon kartaa guurista qoys maadaama qoyska aan xooga saarayno rabno wax kastoo maaragtay bulshada aan isdhehayno waxaan haddaa ka hadashiin saameyn way yeelan karaan aan xooga saarnaa. Wuxuu noqon karaa wadanka ay degan yihiin oo kale haddana gobollo badan uu leeyahay soo maahan. Gobolladaas in maaragtay maanta dhan loo guuraayo qoyskii 4 cunug 5 cunug 6 cunug iyo maaragtay ka badan intuu Ilaahay qofkii qoyskii uu ku irsaaqay laba xataa ha noqoto hal cunug ha noqdo guuristaas farada badan. iyo sidoo kale geedi iyo guuris farqiga u dhaxeeyo. Geediga waxa la yiraahdaa dadka xirxiran oo maaragtay alaabaha u xirxiran yihiin oo biriyaan bixi doonaa, biridan baa meeshan ka tagi doonaa, wax ma kayr waa inay qabsadaan, maxaa waxaan ka qabsanaa biriyaan iskiga tagi doonaa. luqadaan oo kale oo hadda wadanka aan joogno luqad oo adduunka ka shaqeysa ma ah, laakiin dad badan waxay u baranaynin biri inay bixi rabaan. Ama u baahneen. uma baahnin saadan baan ka noqon doonaa ila boorka ila ma tagayso waxay ii taraysa ma laha. Inta in la eg marka wadanka dhexdiisa oo qofka ugu baahan yahay xooga yani ma u saarno meaning iyo macno gaar ahaaneed uma laha. Geedina kaas waay. Geediga dadka alaabahooda ay u xirxiran yihiin oo dabarka uu ku haayo in ay biri bixi doonaan ay ka dhaqaaqaynin. Guuristina waan ka hadlay. Sidoo kale waxaan ka hadli doonaa maaragtay muuqaalka haduu noo saamaxo waqtiga gabagabada aan kusoo gabagabayn doonaa dhaqan celis oo maaragtay westernka caruurta ku korto. Mar walba la yiraaho dhaqan celis ayaa loo celinaa. Dhaqan celis eray saxan ma yahay inaan horta aan ka hadalno. Waxa ilmaha loo celinaayo ma dhaqan hadii la yiraahan maxaa dhaqan noqon karo yacni cunugii cunto cunis iyo sidoo u labisa lahaa iyo miya wax loo celinaayo mise diin celis waa. taasna waa ka sheekaysan doonaa insha Allah muuqaal gabagabadiisa. Ko waxaan ku hormareynaa geedi mise guurista ku hormarnaa ama guurista ku hormarnaa wax oo badanaa aragno waaye oo nagu wareegsan. Maxaa la yiraahdaa guurista waxaan ku bilaabanayna mar guurista wadanka dhexdiisa. taas horta aad aan arkeen. taasaan ku bilaabanayna markaas aan gudbi doonaa adana wadamada kaleento. لأن قف مر هرت ميل لقب صدي جورستيس ويراني أو ودن قال إنه هو يستحتى هدي هو يستحتى معركة أذك قف كاس إنه كجوري نقونيسا لكن دتك أفضل ده جورست وحوا دتك مر كهر تجابي ودن عيس إنه كجور جوران إن هي مركا فاميل تهين ويب كسيدون تهين جورس أو حوا وضع responsibility بدن يحياو فكر بدن ناسي سميسي دوا أو سي ديارس marka qofka guurayna ay ahayn kaliya labada waalid. taas horta taas ay muhiimsan oo rab inaan gal mar waxaa maxaa la yiraahdaa ilmo oo tusaalahan oo waxa laga yaabaa waxay inay deganayeen meeshaas 1 sano ama 2 sano kale ilmo ama cunugaas iskoolkaas ama bayfkootigaasna xanaanadaas oo dhiganay saaxiibo inoo yeeshi ma fahanti la qabsaday oo meesha dhan sida maxaa la yiraahdaa magaalada si u shaqeynayso waxaas dhan jeclaaday oo bas laga wadaa haddana ogaanaya kaliya maalmihii la guuri maalmaha ka hor 3 bari ka hor oo wax la soo qorsheey ahayn hadafka loo guuraa ilmihii oo ka warqabin sababta kalifi karta in meeshaan laga guuro oo meel kale loo guuro huwa tuwa maaragtay faa'iidada ku jirto
benefitka ku jiro ilmaha oo la soconin haddii process mar hore project soo socday oo ilmihii uu ka warqabo oo soo ogaay oo yacni dadka guriga raadinaya oo kamid ahaay way ka sahlan tahay markii la yidhaha biridanba waa guuri rabnaa ama uu ogaado alaabtii oo la xirxirooya le maxaa dhacay anaga ku talina waa bixoynaa iskoolkaada waxaa dhan waa lasoo dhameeyey taasay badanaa ani horta dadka oo wadanka dhexdiisa ama wadamada kala duwan aad ugu guuro familka aniga waxaan arkay hal sabab oo kulligood midayso oo maxaa la yidhaahdaa magaaladan ma jeclaanin ama soomaalidan kaa doonaa maho soomaali oo igu filan ma joogo ama waxay dhahayiin soomaali igu filan ma joogto saaxiibo camal maka helayin fahanti ilaan dadkan finishkan saaxiibo mala noqonayin soomaalida ama cuntooyinka aan u baahnayn sabab cuntooyinka hilib ama waxaas maxaa la yidhaahdaa ma yaalo maxaa la yidhaahdaa basbaas cagaar naag aniga gobol uga guurtaan aqaanaa oon si toos u kasaad shidna ma laga helayo shidna ada samaysanaysid ama waxay dhahayiin waxaasoo kale weligay hadda weli ma arkin qof u guuraayo shaqo ka fiican oo maxaa la yidhaahdaa lacagtiisan meeshaas iiga badan lacagtaas iiga badan meel kalento iiga raqiisan ama tusaalahaan iskool ama waxaasoo kalento oo reason fiican loo guuraayo weli ma arkin anaga hadda marka waxaan ka hadloonaa dadka reasonka fiican haysanin dadkaasaan ka hadloonaa kow horta markii wadamadan usoo guuray sidoo tahay maxaa la dhahaa bacolinen maxaa la dhahaa soomaali qof oo wadankiisa maxaa leeyahay dagaal ama qaxooti iyo waxaa la kala yahaa iyo qurbo joog dad waxay iskaga imaadaan inay wadamadan ay ku shaqo ahaan ay u imaadaan dadkaas looma sameeyo wax oo waxaa la dhaho kotowtamine looma sameeyo la qabsi marka dadka oo qaxootiga ku imaaday waxaa loo sameeyaa program inaan ka hadalna maleyna program oo lagu caawinayo inay wadanka la qabsadaan systemkiis si ula qabsan lahaayeen ani waxaa maleynaa problemka ugu horeeyaba meesha oo kasoo dhalanayan inay guguuraan inay meeshaas tahay markii la keeno programka ma dhegeysanayin mala soconayin ma ka faa'iideysanayin ma fahanta marka way ku adkaani inay meeshaas jeclaadaan waxaa la yiraadinayay maskaxdayda u samaysan moo Soomaaliya ka imaadeen waxay ku wareegsanayeen dad oo isku af ay yihiin isku dhaqan ay yihiin isku waxa maxaa la yiraahdaa isku diin ay yihiin wax kasto qofka waxaas uu raadina marka ilaa oo ka helo ma fadhiisanaa mana ma ku raadinayeen tiisa le u horeyso ma fahanti ilmaha ma fiirinayo malaha ilmaha ma jeclaa doonaa waxaas ama tusaalahaan waxaa jira hataa labadaba waa fiirinaa niman waxaa jira sa sameey iyo naaga sa sameey oo isku dhahaay bahay aan guurna ku liin oo ninka hataa la warsanayay iyo ilmaha okay bes waa la iska baxaale iyo niman sa sameey hataa marka ka faa'iideysan la'aanta oo wadanka markay yimaadeen habla qabsigaas akiinis iyo dadkii ka soo horeeyo xogaa jambalna waa liisu tuura oo hadda inta imaatiin dad badan waxaa jira hadda gobolkii kow anaga aan wadanka marka imaanayna la keenay waqti badan aan deganeen dad naga dheer oo deganaay ma jirin dadkii ugu dheeray ugu sanado badnaay oo deganaay ahayn 12 sano gobolkaas kaliya soo deganeen reason aan uga soo guurno oo weyn oo markaas jaamacadii aan rabay kuma oolin taas aan uga soo tagnay bacdeen dad badan oo waxaa jira markaas oo kale naciimo gobolkaas ka lacag badan gobolkan aan lacag meesha mu joogi maaragtay lacag meesha joogtay wax ka qabsan kartaa ceerta dadka qaadanaya gobolkaas ka lacag badan gobolkan waa la isku shubi jiray marka meel loo guuraa hal mar sidii maaragtay shimbiraha oo marna soo guuray inta maaragtay markii barafka oo noqdo baxa barafka ma sii baxay inta imaadaan marka barafka oo imaanayeen way dudaan magta si camal ay israaci jireen oo aaday waa isalfan jireenoo qofka kale inta uu jiiday taasna way keeni kartaa halkaas erey wuxuu leeyahay termi oo la dhaho peer pressure dhahan maxaa la yiraahdaa af ingiriiska waxaa lagu baray iskoolka tusaale waxay usoo qaateen dadka teenager ku bilaabo kalento dragska iyo waxaas waxaa u keeno peer pressure oo saaxiibadaha hadday bilaabaan adigana waxaa leeyahay anigana aan bilaabo camal si aa u dareemin inaa banaanka ka taaganta saasaa la dhahaa marka peer pressure
saas waa marka dad badan dadkaasa ku haay bareesharkaas oo soo guurayay maxaa kugu dhacay dhulkaas markaas aan deganay hataa qaara arkaa dhahay waa lagu madoobaadaa waa lagu fool xumaadaa gobolkaas dhoobooy oo kale waa dadaa dhahay marka intee in la eg marka saameyn oo ilmihii ka dareemi kara xanaanadii wuxuu ku yeeshay saaxiibo maaragtay iskoolka wuxuu ku yeeshay cunugii Soomaaliya uu ka yimid amaba ku dhashay xataa wadanka doo rabo wuu la qabsaday wuu fahmay waxyaabaha marka uu fahmi la dhahayo wax badan oo culeys oo waalidka oo ogeyn ka soo gudbi ilmaha in groupkan ay accept gareeyaan waqtiga ku soo baxay dadaal ku bixiyay sidoo uga mid noqon lahaa sida idoo la cunsuriyeenin la riixaynin oo groupkan sinaan oo la dhaqmi lahaa waqtiga uu ku soo bixiyay meel hor la hadii la keeno intii in la mid ah u taal intoo isa soo gaday ilmihii marka oo is dhahay dadkan la soo qabso macashiro ku mashquula waxbarashadii mise dadkii oo koogu hore inuu accept ka raadsado oo yani dadkii oo isbaro ilaan waalidkii inuu iskuulka ku dhaxgee marima la yiraaha barta ma dhahay mo saaxiib la noqda ma dhahay mo cunuga asaa laga rabaa inuu arintaas la yimaado oo keensado macallimiintu cusub yihiin way kala duwan yihiin waxa laga yaabaa marka hore macallin inuu la qabsaday macallimiintii cashiradii sidii la rabay ugu socdaan meesha markuu yimaado inta in la eg minus oo dib u dhacayso maxaa la yiraahdaa aad saad u tahay maxaa la yiraahdaa cunugaas hadhow waxaa la arkay keesyaal badan aan arkay oo ilmo oo ama dad mar dambo sameeyey maxaa la yiraahdaa qof ay dileen ama waxay bilaabeen drugs ama waxay bilaabeen inay wax hadaan waxaa la dhahay guuroogaas badan way keeni kartaa saaxiibo weligood miyeelnay mooyda dadkaas saaxiib kastoo meel ay ku yeeshaan way kasii tagayin leemaho haddaan ilmaa tihiinoo tusaalaha ma dhehaysin snapchatka ama whatsappkan iska waceyna iyo waxaas ilmahan badanaa waxaa waaye meeshay tagaana iska qabsadaan meaninka saaxiibtinimada ay yeelanayso tusaalaha markii soo gaartid 16 17 oo kaleento markaas ma laha waa isla dheeloosiine ma isu sheegtiin aan ka wada ma dhehaysiin oo kaleento waxyaaba mis wax isku siraysanaayo waa hadal leh ma iska hadal leh oo iska dhedheel hay galabta ku soo raaci karaa xaafadiin kul soo joogi karaa muxuu ahay adi baarbidaana maamadii isoo gaday adi ma haystaa baarbidaan waxaas leh marka cunuga markuu kasoo guuri meesha uu iloowa dadkaas ma fahanti horena uu sii socnaa haddana dadkaan oo la qabsanaa haddana uu kasii tagaa uu is iloowayin maskaxda dhan ma fadhiso markaas marka dhibaato weyn oo minus ilmi ugu sugan haye cashirkii agtiisa haddana iskoolki la qabsigii bi'adii iyadoo markii hore ku adkaatay ilaan dadka la rab inuu la qabsado iskoolka kaliix ma ah dariski culture-kii ilaan iyadoo isla wadankii ay tahay kala dhaqan waa maho dadka hadda anaga 3 meel aan degnimo wadankan 12 sano waa mid kasto laba mar bisan guurnay 12 sano labadaas marna labadaba reason aad u weyn aan ku guurnay midkii aan degnaa marka dhaqankii gobolkii hormeeleyn kuwa kale ma lahan la qabsigiisa u baahan yahay marka dariskii culture-kii macallimiintii ardaydii muxuu ahay cimiladii wax badan oo la qabsi badan u baahanaa jiro haddii ilmahaas ka war marka ayagoo ka warqabin haddana la yiri biri dambe guuri rabnaa maxaa la yiraahdaa wax aad iyo aad waxa oo laay murugoodo haddana waxaan ka fikirayaa hadda waxaa jira no ingiriiska lagu dhaho dadka oo tusaale ahaan markay wax sameynayeen dadka ku wareegsan oo dhan ka fikirayeen oo kaleento oo way kale iska fikiraya oo markay qaataan tusaale ahaan oo kaleento go-aankaas ama ay sameynayaan waxaas ma fiirinayeen sida familkooda ama saaxiibadooda ama waxaas oo dhan ay u saameynayso ereygaas marka waxaa la dhahaa selfish ma fahanti maxaa af Soomaaliya mu heli kartaa ereysaas camal selfish maxaa ahay it's a casual of finish anani ani kaligay al dhaha marka ma dhihi karo anani camal waa qof maxay hooyadaas ama aabahaas sameynaa markaas ay hooyadaas ay guurtay ma fahanti waxay sameynay magaalo weyn yar maho oo Soomaali ay joogto ay Soomaalilinka hadloona markay magaaladaas tagto iyo saaxiibay helay oo Soomaali ah oo ay la hadasho oo maxaa la yiraahdaa is fahmeen oo ay la sheekaysato cunugaas waxa cunuga waxa ku caburina dhaha maxuu ahay habar heblaay ilmeheeda saaxiib la noqo inuu diyaar u ahayn laga yaabo inuu saaxiib la noqdo markii hore saaxiibadii uu bartay ku dhex koray ay ahaayeen
dad aan Soomaali ahayn ها أما waxaan ka wadaa hooyadaas iyada enjoying waxay iyada ay rabto nolosha waxay iyada ay ka rabto ay jeceshahay waxaas lee ka fikiraysaa ma fahan qof kale dhan familka ka mid ama u jeedo wax aad iyo aad u xun oo haddii aad isku aragtid oo kalento inaa waxyaabo go-aamo samaysid adoo ka fikiraynin dadka adag kugu wareegsan say u saameynayso inaa iska dhaaftid waa maxaa layihahdaa dhaqankaas wax fiican ma aad u xun waa marka muxuu ahay go-aankii waaba qaadatay hooyo ama aabo labadooda qofka uu noqdo maaragta waalidkii aan ka hadlaynaa qofka markaas labada waalid qofka oo anaaniga ahoo go-aanka kaligiis qaadanayo wixii aan laga tashanaynin la munaaqashaynaynin laga wada sheekaysanaynin hal go-aan laga wada qaadanaynin qofkii go-aankaas kasoo horjeeda aan la dhegaysanaynin oo aniga go-aankaan kasoo horjeeda la dhehaynin sababta a kasoo horjeedid iyo waxaan maxay tahay kasoo horjeedashadana badanaa waxaa keeni karo haddii wax reasonka lagu guuraayo ilmahan uu arkaayo wax un habarar way guurto waa kadawa guuraynaa iyo meesha anaga kalim ku noolaan karnay dadkaas saaxiibada aan la ahayn ama dadkii aan isla imaanoo dhan way u guureen caasimada anaga maxaa meeshaan ka heynaynaa ilmihii waxaa laga yaabaa ilmo markaas active ama smart oo fahmaayo oo diidan meesha kaloo la qabsigeedii inay meeshaan kasii adag tahay oo hadhow ka hor imaan karo oo diidi karo ilmahaasoo kale markii lasoo qasbo oo aan la dhagaysanin oo lala yimaado gobolka kaleento ama caasimadii waa ilmaha markaas hadhow diido inay gurigaas cusub ku dhaqmaan meesha su-aal aa imaanaysa marka adoo qof waalid ah qof weyn ahoo waalid ahoo mas-uul saaran yahay markaa dhahdid saaxiibtay bay guurtay anigana waa guuraa adi yaa tahay waa marka mistaqaana adi waa tuma qof kale lema unoosha ilan qofkaas wuxuu u guuri waxaa laga yaabaa inuu u guuri wax inuu ujeedo shaqa ama waxaas adi waxaa leetahay bis waa daba socotaale boorsadooda leetahay raaciye adi noloshaadi aa marka waa ilowday noloshaadana waa ilowday ti ilmahaadana meesha kusii maxaa la yidhahdaa burburinoosa baabi'inaysa marka waalidiinta waxaan leenahay qof walbow hadafka aa u guuraysid haddii wax kuu cad oo sax ahoo waxaa haysatid wax ka weyn oo markaas aad raadinaysa ay ahayn wax u fiican ilmaha ma ah mar walba horta maxaa u imaatay adiga anagoo dad waaweyn aha meeshaan imaanimo waxyaabaha u imaanay ilmihii wa haddii ayagii marka haddana aan ka fikiraynin oo qof kaleenta le nolosheen inaan ku caleeqno oo aan ku xirno niraaha qof eblooba meesoo dawaa ka daba degaa dhibaatooyin aad u weyn ayay leedahay sidoo kale maaragtay guuristaas iyada ah haddii ilmihii waqti isku soo orod oo dad waxaan arkay ani 5 maalin gudaheed ku guuri 5 beri gudaheed 1 2 3 4 5 maalin ku soo dhacday telefoon lagula sheekaystay isla markii waa guuraya alaabihii hoose u cusub yihiin guriga yaala ujeedid meesha qashinkaa la dhigay qofkii qaadan kara ha yimaada ha qaato ay ahayd la kala qaatay ilmihii boorsooyinkii dharkii lagu soo aruuriyay waa la soo guuray gurigii kaleenta xataa weli hagaajiskiisii iyo wixii oo dhan dad lacag ku bixiyaa jiro oo guriga ay ka guurayin waa la nadaafadeemo dad lacag ku bixiyaa jiro oo maaragta ka dhexbaxale oo in ka carar la yiri camal taasoo kale ma wanaagsan ilmihiin uma fiicino sidoo kale cunugaas muxuu kasii baranaa marka markiisas alaabta iskaga tuuraysid le hadhow siyan saas loo noqonaa wuxuu noqonaa qof oo alaabta maxaa la yidhahdaa ay meaning u lahayn dhaqaalaha wax dhaqaaleynaynin wax ka fikiraynin waqtiga tusaalahaan cunugaas hadhow hadduu kugu imaado ku dhaho waxay noqoto oo go-aan qaato oo markaas le kusoo dhacday oo sameeya adi markaa dhow waxmaa dhehe maxaa u sameynaysa go-aankaas adoo ka fikirin ama adoo noo sheegin maxaa u degdegay adoo kaa bartay waxyaabahaasoo adiga aa ka fikiraynin oo dhehaysid ani leeb sameynooya camal ama wax sas u weyn camal ma ah hadda guuroogaasoo kale hadii alaabtaas la tuuraayo adi waxaa laga yaabaa inaa isdhehdid bes guuroow leeb waaye laakiin waxyaabahaas waxay saameynayeen cunuga maskaxdiisa qasnadii eeday ka buuxsamaysaa wuxuu bilaabaa tusaale ahaan wuxuu bilaabaa adi alaabta sasaa u tuurtimaho wuxuu bilaabaa inaa wax kasta usoo gadid oo sas iskii tuurmakoo nooc wuxuu bilaabaa inuu xiisa ahaado wax walba xiisa ahaada telefoon cusub oo qaali ah inuu 3 bil 5 bil kadib oo yiraaho kan muu baahnaa hadaan iska tuuro mid kaleenta heli karaa wuxuu bilaabaa wixii uu ka arko saaxiibadiis oo kale dilaan adib saaxiibada wixii ka artaa sameeyno samo saaxiibadiis wixii uu ka arko inuu kuulu imaado ku dhaho waxaan rabaa oo markaa diidid oo dhahdid kii hore maal tuura oo cusub ay qayla bilaawdo adi marka waxaa leeyahay cunugeyga aan weligay ma babarini
confuse tahay waxaa malaysaa toori ahaan ma ugu sheegina isloysa ها توري ما بدنا ilmaha waxa ay yihiin waxa wax dhaqan ay ka arkeen waalidkood hab dhaqanka boqolki 95 ficilka aad sameynaysid waa ilmaha biruuxu ku aqrinaayo hadii marka wax fiican ka dhawaajis mare ma sha Allah tabaarak Allah ku xifdiyo Allah ku dooro guuristi waa la soo guuri saameynta marka caafimaad ay ku yeelan kartaan raba insha Allah in yar inaan anigana aan ka taabto koow ilmihii horta hurdo la'aan ku dhiciso hurdadii inay la qabsadaan siday gurigii hore ugu hurdi jireen way ka guureysaa hadhow waalidkii waxa laga yaabaa marka cunugan muxuu sii dhamaanooyaa cunugan muxuu ma aragtay caafimaadkiisa hoos u sii dhaca qolkiisa u diraysaa ilmaha yar ama u diray gabadhi ama wiilkii inay seexanooyina u malaysaa way soo jeedaan waxa waa inaa ka warqabtid aad muhiim u tahay labo caafimaad ahaan waxyaaba ay ka saameynaysa waxa koow iyo laba ka ah cuntadii oo kale in ilmihii obateedkii oo ka xirmo cunto xumo ay ku dhacdo ama obateedkii oo u furmo oo cuntadii ay ku waashaan oo hadhow markaas caafimaad darro iyo waxyaabo kale inay meelaha ay ka gataan ay bilaabato oo banaanka maaragtay cuntadii banaanka ay ku waashaan oo si kaleento waxaan shockigan haayo wax ay ku damiyaan oo maaragtay ay ku qaboobaan ay raadinayeen maskaxdiina marka risaalooyinka ay soo dirayso maaragtay deganaashii xasilooni sameeydi waxay u maleynayeen inay gaajo tahay biyo cabo kala qaar dhahay waxa jira maskaxdii cunto u maleynayo qaar kale oo deganaashii xasilooni iyo neefs laga rabo oo u maleynayo cunto caafimaad daradaas oo kiimaanay waxa laga yaabaa inuu hobby ku lahaa meesha uu joogo ilmahaas oo kaleento oo meelaha uu ka qornaayo kaleento waa laga soo wareejiyay dad cusub iyo hobbigooda hadan intuu baranayo ma gaara cunugaas inoo samaysto ingiriiska kala hadlaa meaningful relationship yaal oo waxa leh meaning ma buka gaara inoo sameeyo 2 sano 1 sano ciyuubo waa ka wadoosa qofkaas waxa laga yaabaa marka hadan inuu u gacan galo dad badan oo bi'adii dadka dhibaataynays gaangiska ahayd ay tahay ma garanayo mo meesha uu ku koray wuxuu kala yaqaanaa kii wax dhibaateeyo kan maaragtay u rooneen iskuulka inuu maaragtay wax ka barto dhalinyarada kale inta dhibaatada ku ah kan maaragtay si target ahaan cunsuriga waxaasoo dhan wuu soo kala bartay ilmihii moo meeshaan cusub markaa keentid waxaa laga yaabaa gurub is haysto oo dhibaateynayo inuu u gacan galo oo hadhow meelaha lagu dilo kaleento way dhacdaa marka aaday dhibaato u leedahay maxaa raacinay waa ka bixinaa mawduucaas aadow kaligiis u dheeraaday waxaan raacinaa maxaa la yiraahdaa waxaan maleynaa inaan kasoo hadalnay kulli wixii la rabay la tashiga aa muhiim in maaragtay aan raacino in waalidkii maaragtay ilmihii ay la tashtaan oo guriga dadka raadinayaba ay ka mid noqdaan adi maxaa la yiraahdaa noloshooda wax saameynaya haddaa kala tashanaynin adigana ma lagu soo sheegayo mana lagala tashanayo wixii oo sameeya hadhow marka adima dhihi kartid maxaasaan u sameyni adaa barti wax oo maskaxda waxaa malaho meel oo subconscious iyo conscious marka waxyaabahan oo kale waxaa malaynaya in wax oo subconscious ahaan loo sameynayo qofka oo iska sameynayo like oo ogeyn tusaale ahaan indhaha aan gaba ka siinayni iyo maxaa la yidhaahdaa hadda neefsiga aan sameynayo iyo waxaas saas camal waa sameynoosaa laakiin adi ma ka fikiraysid ma dhahaysid indhahan gaba ka siinooya marka saas camal waa waxyaabahan dhaqankan ay sameynayeen guurowga iyo waxaas isku dadaysiga iyo waxaas oo dhan marka cunugaas wuu ka baranaale adi subconscious ahaan marka u sameynaysid hadhowna markii oo ilaa cunug waxa le waa maha muraayadaada oo kale waxa adi sameysid loo kula sameyn hadii sistaadid adin usin wuu sameynaa marka adi waxaa leeyahay maxaa u sameynaysaa adma anima sameynay laakiin waa samaysid admiis ogid laakiin makaa sameynaysid tii oo waxaan rabaa insha Allah inaan arrintan kusoo xasuustay maaragtay markaa xaamilo ahoo kale cunugaas cunugii ka weynaa bilooyinka u dambeeya markaa maraayo kale oo istaaga aan ku tuka waayo aan fadhiga ku tukadaa mogta kursigan ku fadhiistaa oo maalmo le dhalista markaas ay iiga dhimantahoo kale maxay sameyn jireen ilmaha yararka oo walaalaha iyagan maaragtay maxay ku fadhiisanayeen kursigii salaadii marka maxaa isku dhibi jiri marka aanoo istaaga ku tuka karin inaan ku tukado ama aan kala dhuunto waa la dhuumanaa salaadii waxaan kala dhuuman jiri inaan fadhiga ku tukado waxaan arkay in maaragtay iyow liga duubay oo maamada fadhiga ku tukanaysaa ma aragtay saanaab ka fudud istaagi camal cunuga makoosasu yaraya
maxaa la yidhaahdaa ma process garay kara marka maxay u fadhisaa ha way fadhisaa le bis ha marka tanaaba ii fudud aan laftirkeyga dhinacaan aan ka raacana wax badan oo waxaa jira marka 95% ilmaha waxyaabaha aan ku saameyno waxa waaye dhaqanka iyo habka u dhaqmayno indhahay ka arkooyin way dhargooyin maskaxdooda duubay mararka qaarkeed ayagoo iska ciyaaraya PlayStation-kii ama telefoon ku jiro waxaa malaynaysaa inay kula soconin wax walba way la socdaan wayn ka warqabaan wayn ogyihiin mawduucan waan ka bixaynaa waxaa waaye waxaan kusoo gabagabeynaynaa la tashiga waxa reasonka loo guuraayo guriga dhan hala wada sharxado hala wada ogaado si ilmihii dhinacood ay uga xirxiraan alaabtii oo mid walban la yiraaha ilmaha kan ma ka tagayn waa u baahan kan ma ka tagayn waa u baahan soo cuniga usigan alaabtiis oo dhaw kan ma ka tagay waa u baahan wax aan ka soo tagnay ma jira anaga u baahan cuniga bar wuxuu u baahan yahay wax kale soo kala faham maxaan waa tuura ma u baahni iyo waxaan waa qaadana u baahan maskax subconsciously aan sheegay wax oo adiga arkaynin oo laakiin process dhacayo baraysid meeqa iga fujinaysa marka aan alaabta maama kan uma baahnid ma ama u baahnay maama waa u baahnay kan uma baahan iyo marka tiraayin kan uma baahni oo kale maama kan ina u baahantiin laga yaaba dhinac gooniya u qaadaan waa soo qaadintaan keenay waa u baahateen mo marka soo kaleento aad ay muhiim u tahay waxaan galeynaa marka guuristii dibadaha mawduucan isagaaba ma aragtay wax badan xambaarsan wadankii dhexdiisa tan ahayd يعني أنا ماشي أنا جوجنا وعبيروينا ويسترينك هدي ودن كان أنا راهم معني هذا مو فيلان كلينا كادلينو ويسترينك هدي أكون نوشة إمعل لولك عربية تا قربات أكون نوشة ودن كي هواية تكون نوشة جوريستا مجا جوريستا وحن كادلينا إبعتها كل هذا هاي عرورتا هذه مجرنا يصير أباه سكنوا كهلا مرك كل سو جورو 8 دقيقة كدب واكنا أصوات شبينا وهلا هواية السيدو كله ليه تدبع يوم جورو سوف ليسنيس وهليسا ماشي ilmahan indhaha uu taagayo oo la ayay dad oo la hajiyay dad oo maaragtay la saaxiibo taas halkaas uga baxnay dibadii hadana waxa la sameeyaa waa la guura wadanka oo Kenya kale hadda Kenya noo fiican oo kala dhaha hooyadii ilmi way la bixisa xagee la dagay way ku filnaa waynaysa qarashka ku filnaa waynayo aabihi intuu ku hiraa ama hooyadii kaligeed markeedii ahayd isku celis Kenya ku filnaa way siciiday ama Kenya ay fiicneen dad badan oo aniga friends oo waxaan leeyahay meel ay wali la qabsadaan la oo dhahay noo soo ducooy waxay aadayn hadana Masar ay la qabsan waynaayin Turkiga ama ka fiican tahay Turkiga imaanayin Turkiga waxa ka fiican meesha Nairobi ka degto waxa ku fiicnad Mombasa inaad degtid Kenya Mombasa hadana aadayin shidadaas iyo dhibaatadaas ayaa haysato ummadda Soomaaliyeed meel ay macnaha ku xasilaan badankood way la yihiin ilmihina boorsadii oo kale ma noqdeen qofka boorsidiis ma dhigmo ilmihii marka lagama tagay ma waa la wadaa marka mar meel al geynooya Masar haday tagaan luqada ay wax ku baranayeen Arabi waa iskoolada especially oo maaragtay private ka in English ku helaan laga yaaba hadii wadamada maaragtay English ka looga hadlo dadkii laga wado kale way u sahlan tahay maaragtay way la qabsan karaan iskuulkii private ka ahaay oo Masar oo kala day galaan oo Ingiriiska lagu dhiganayo laakiin hadii laga wado ka waran Finland oo kale Norway oo kale Sweden oo kale Denmark oo kale Jarmalka oo kale English loogama hadlo shock waay waa inuu hadana Ingiriiska waxa la dhahaa 2 sano waa inuu ku bartaa 2 sano albaraa 2 sano haduu galaaska ku jiro 7 oo kale dibo wuxuu uga dhacaa ilaa 2 sano ku luqad soo barta 7 kilo wadan ka bilaaba already markuu dugsi sare fadhiisan lahaay ayuu hadda wuxuu soo fadhiisanaa dugsigii dhexe galaaskii koobaad qasaare iyo waxa waaye dib u dhac hoos u weeno hadhow ilmihii dhibaato u keenayo taas waxaan ku darsanay taas waxaan ku darsaday hadii ay ahayn wixii hadda ka soo hadalnay oo ahayd saaxiibadaada ama waxyaabo enjoying oo maxaa lahaa oo aad hata akeensi kartid daarabtid ma fahanti waxyaabo xiise ah leh hada u guureysid oo wadamadaas u kala guureysid of course waa ka hadalnay waxa waaye wax oo qalad ah oo damage weyn ku ah ilmaha maskaxdooda laakiin dad waxaa jira oo saas ahaan u guurino confuse iska ah ma fahanti anigana waxaan dhihi lahaa dadkaas inay iswarsadaan maxaa adigu ku nacday meeshan oo u rabtaa inaad tusaalahaan haddii Kenya degnid oo Kenya maxaa adi maxayd qanaaca ahaa maxaa ku keeni waay oo u rabtaa Masar oo kaleento ma fahanti ama haddii tusaalahaan westernkan joogtid maxaa inta qanaaco ku keeni waay oo u rabtaa inaad carabta degtid difference weyn waa maho carabta waa la arkay horta waa la ogyahay inay tahay meel oo qaali
haddana ilmahaada haddii wadatid oo adiga kaliga ahayn of course waxaan ka hadloonaa qoys moo haddii ilmo wadatid ma haysaa horta lacagtaas ma u tahay maxaa taloo dhalisist maxaa la dhahaa dhaqaale ahaan diyaar ma u tahay inaa waxaas dhan bixisid wax badan oo la rabaa in laga fikira haddana waxaas adig inta qanaaco ku lahayn haddii cunto tahoo kaleento tusaalan western anaga hadda maxaa la yidhaahdaa ma aragna maha cunto oo soomaali oo restaurant oon tagi karon gurigalan ku samaysanaa maalin kastana qof horta energy u ahaa jirin inuu sameeyo marka haddii tiraahid aniga maalin kasta waxaan rabaa bariis iyo hilib iyo oo la sameeyo fresh inaan kasoo gato suuqa ama pizza inaan kasoo gato hadda anaga pizza meel laga gato waxaa leeya waa maho tuulada noo dhow marka haddii tiraahid maxaa yidhahdaa pizza inta maka helaye tuuladaasaan uguura ama waxaan uguuraa magaalo weyn oo leh hadday waxaasoo kalento tahay waxaan ku lihi lahaa weli ka fikir dad waxaa jira laakiin u guuro inay ilmaha qur-aanka ay soo bartaan taasna way noqon kartaa ilmihii qur-aanka markaa baraysid marka muhiimadda ugu weyn waxay tahay qorshay marka hore qorshe weyn projectigan ha noqdo projecti ugu yaraan 2 sano 3 sano soconaa intaa guurin ka hor sahan sameey maaragta sahan mataqaan waxa laga laakiin qur-aanka maxaa la yidhaahdaa waxaa jira maaha brograamo oo online iska baro waxaa laga yaabaa in brograamkaas oo waalidiinta qaarkood uu anficaynin ama technology ahaan ay u aqoonin waalidkii ama ay ku qanacsaneen oo ay rabaan meel markaas macalinkii uu imaanayo physical ahaan hingaadii wixii oo dhan uu baraayo ani horta maxaa la yidhahdaa ani horta waalid ma fahmi kari maxaa la yidhahdaa rafaadka ay tahay laakiin waalidaa tahay maho waa u diyaar garoodi inaa ilmo korisid ma fahanti maxaa laga yaabaa inuu adi hataa samayn kartaa maxaa la yidhahdaa qur-aanka adi ka saynin adaa soo baranay kow kadib ilmahaada adaa baraysid waxaa dhisaa qofka wuxuu waalid noqdaa soo diyaar ahayn maa dhihi waxaa malaynaa waalidnimadii ama ilmo koriska inay maxaa la yidhahdaa ku sameeyaan ali arvastus camal hooseen may maxaa la waxay maxaa lahaa qofka markii tusaalahaan oo kalenta imtixaanka oo kalenta oo ka sugaya inay imtixaan adag oo ahaado oo laakiin imtixaan iska fudud oo ahaay wax sahlan expectation camal wax sahlan inay tahay ka sugayin marka dhalowgu wuu sahlan yahay qofka inuu xaamilo noqdo ilmo riixo way sahlantahay laakiin koriska mas-uuliyad aada u weyn waaye marka adi jid kastoo mari kartid ilmahaada inaa u martid taasaan dhihi lahayn oo ayaga le aad dhihiin ilmaha wax ii baranayo may waalidiinta qaarkood waxay aaminsan yihiin oona aan isdhahayo waalid walbo muuqaalkeena daawanaya inuu arrintaas iska saxo wax barasho aninka ma gaara ayagaa wax ii baranaya ilmo yaryar oo hadda 2 jir 3 jir 5 jir ah waxaa sugayay in ayaga ay wax bartaan adigana meesha isku soo xirti khalaas ana hadda hooyo dhasho yaa noqday ama aabo oo koris ahaan ahay ayagaa wax ii bara doono ayaga intay hingaad iyo qalin qabsasho ay soo gaarin 3 sano cunug maaragtay 3 sano jiro hadda isku dayda wax baratay 3 sano kaaga badanaysa quraanka kaas horta toobi kalo ma noqona waalidiinta sas dhaho oo dhahayo ilmahayga ay barana waxa si oo maxaa la yiraahdaa tartiib waxay ku bilaabaan cunugaas inoo wixii week ay maxaa la heli waayeen ama ay rabeen noqdaan inay tartiib cunugaas ku riixaan jidkaas ku riixaan ma fahanti soo uno ani noqo koobigeyga koobigeyga noqo marka cunugaas marka waxaas noqdo way ka dareema inay wax gaarin camal adi ma gaarin marka psychology waaye I'm so sorry mane I'm so sorry cunugaas waqtiga ku dhumini wuxuu rabo gooni ay u tahay waxa adi iska dhex arkaysi aad rabti aad burinaysi ama aad yacni helin haddaad tiraahid ka waran waxaan rabaa inaan ka dhex arko wixii ani aan heli waay waa inay maryamo ahaataa qalad waa maryam waa inoo noqotaa wixii aniga aan soo waayay maya waa lisgarab ordaa meeshaan waxa waaye shaksi kaloo aad diyaarinaysid waa adiga waxa waaye koriskaas laguu sheegayo oo baastaa waaye adi hagalee tahay hagaajiyaa tahay maaragtay wadooyinka qodax lahay adig aa kusoo kuftay leedhoweysaa meeshaas qodaxaa jirta meeshaan kanaa jirta hagalee adi tahay waalid markaa tahay
alxamdulilah autominen ma aragtay adi waxaa tahay وعاوني caawiyaa tahay caawiyaa tahay wadadan ilmahan oo u dilaacsan ama hibooyinka uu leeyahay ka dhex guuxaayo waa ku caawinayle taas maara wax kale aan u curina aan rabaa inaan u sameeyo qaladaadka dhacay ka mid tahay geedigii aan galayna qofkii oo maxaa la yiraahdaa xirxirnaay alaabtu xirxirnaay oona guuraynin wadankaas oo degan yahay afkiisa ama systemkiisa ama waxaas dhan baranaynin ama culturekaas waxa ka yaay oo dhan because wuu bixi rabaa wuu noqon rabaa intee u socotaa markaas waxaan u socdaa waa ka noqon rabnaa meeshaan wadankii aan u soconaa markaan ku jirno xerooyinka qaxootiga turkiga waxaan dhihi jirnay meeshaan biriyaan ka soconaa markaas waxaan rabnay ma kulligeen dibadaan soo wada rabnay dibadii markaa imaanay shandadii inaan furno waa moo waana lasoo qaado waana lasoo xambaaray seefaana waa nala keenay halkaan inaan meeshii markaas aa imaatay qof wal meeshii ilaahay u calfay dadkii turkiga jooga waa la kala fircad qaar fiilaana imaadan kanada waa la kala tag moo qaara maraykanka tag australia new zealand maxaa lagaa rabaa marka adiga meeshii aad tagtay haddaa saas ugu sii noolaatid haddana intee u socotaa geedigii kaasaa la yidhaha waa xirxiran yihiin luqadii markii luqadda aan ku dadaalna aan barano maya biriyaan ka socdaa aniga meeshaan luqadaan biri weyni badanaa waxaa la dhahaa waxaasoo kalento wuxuu leeyahay hadda maanta waxaa la dhahaa termio leeyahay waa fiican tahay maasha allah termio leeyahay laakiin ma xasuustay hadda waxaa wax sas syndrome camal waa dad oo u nool leh futureka oo u nooleen hadda meesha ay joogaan joogin oo future kale u nool ana hataa marmar waa isku arkaa dad badanaasa sameeyo wax oo anaga subconsciouska uu sameynaayo hadda tusaale ahaan oo kale waxaan xasuustaa markii 9aad iyo 8aad markii aan dhahayo maxaa la yidhaahdaa lukiyada maxay dhahaa dugsiga sare anoo jooga le mis arki karaa oo weynaadiyo computerkeyga wato maxaa la yidhaahdaa gawar weyn oo kasoo baxaya lectureka oo galaa haddana bifcotiga aan waxaan dhihi jira xanaanada anoo ku jiro waxaa la dhihi jira anoo iskool mar lee galay mis arki karaa marka waxaan isku arkaa marmar wixii anoo maxaa la yidhaahdaa iskoolka ku jiro dhihi jiri tusaale ahaan oo kalento dugsi sare mis arki karaa had dugsi saregi waa heli maho maskaxdii waxay ku leeyahay waa heshay bes meesha ay ku dantay ma heli karaadi waxaa bilaabay marka inaa ka fikirtay tii ku xigtile hadda marka waxaan arkaa anoo dugsi sare 3 sano dhan anoo ku jiro waxaan is arkaa anoo dhahayo maanta oo dhan wax kastoon sameynaa waxaan dhahaa maxaa la yidhaahdaa jaamacadan kanne oo inta joogtid kaasoo kale horta wuu fiican yahay midaan oo mustaqbalka fikirkiisa waxay kugu riixaysaa sida aad darbigaas ku jibileeda a ku gaari leed laakiin midda hadda aan ka hadlayno geediga waa mid hore u soconaynin oo waaba noqon rabnaa muxuu ahaay beriyaa meeshaan ka tagi rabnaa adoo meeshaan beri ka tagaysid tiraabad maanta aa haysid inaa qaadida al ramo way kala duwan yihiin laakiin waxaan ka example waxaan ugu soo qaatay future kale u nooshahay ma fahanti hadii aa ku jirtid dhan maskaxdaada wayba iloobay dad waxaa jir dhahaa ma baxsuustay aan wixii sameeyey 2 sano ama 3 sano ka hor camal waxaa u xasuusanin waxaa maba ku jirin momentigaas focuska oo meeshaas waqtiga xaadirka maba joogin baad futureka lay joogtay marka dadkaas horta dadka dhahayo wadanka u noqonayna maxaa wadanka waab kasoo orada usoo dagaal ka buuxe wuxuu ahaay burbursane nabadu noqon doonaa waa guuri doonaa 30 sano daday maanta 90 dadkii yimid qaara weli boorsooyinka ay u xirxiranta oo luqadi baranin oo shuruucdii wadanka baranin oo wax kale ka baranin oo shahaado ka qaadanin oo systemka looga noolyahay aan fahansaneen ilmihii ay koreen maaragtay iga maanta 22 jir ay yihiin welina ilmihii maskaxda loogu sii shubaa beriyaa noqon doonaa anlak waxaan rabaa inaan ogaad maxaa keeni karo inay boorsadu kuu xirnaad inay boorsadu wax oo second la furaayo la xiraayo lemaho dharka waxay kugu xirnaanaysaa haddii anaa og waxaa jiro termio leeyahay waxaa waaye waxaasoo kalento waxay ka cabsadaan cabsi waxay ka cabsanayiin haddii boorsooyinkaas ay furaan inay iloowaan Soomaaliya ma fahanti taas waaye marka taasna dhibkeeday leedahay waxay ku ilowsiinaysaa waa fahansanahay waxay ka cabsanayiin inay waxay umaleynayeen khalaas inay dad oo
ها iloobay ها boorsada haday furan bis camal waxay ka bixi controlkooda Soomaali waxay noqonay wax oo bis gadaal mar Soomaalinimadii inay ku waayaan ha oo ilmihii markaas dhow ay Soomaali noqon waayaan qaarkood wali boorso waxay ugu xiran tahay xataa inay dhahayiin ilmaha biri waxay noqon doonaan ma ogi aniga ilmaha waxay noqonayeen ilaahay yaa garanaya adi waalidaa tahay dadaalkii ibni aadannimo lee ku eg tahay fa idaa cazamta fatawakkal cala allah عزيمتي يكورسكي يهجستي يهلبي كرينتي وحي لا كجرت هذا شقدي لغودري هذا شقاله لا تاع نتيجه شقه كل هذا ما جرت ما برك سو بخي دونت maxaa la haa dhahdaybo waxaa malaysaa inay dadii ay boorsooyinka ay furaan noloshas galaan waxay noqonay dreamkii ahay Soomaaliya oo noqonayna Soomaaliya nabad inay meesha ka baxday camal oo irideeda la xiri iridaas inay furnaateer ama marka maanta oo dhan way farta ku fiiqaan waxay ka hor istaagay ma waxyaabo badan adoo biri waxyaabo kastay adoo noqon kartid waxaa la rabaa wadanka aku noolad inaad si fiican ula qabsatid ma iridaas inay xirtid waa si irid kale ku furanto haddii irida maanta oo dhan ay furan tahay waxay heli lahayd oo dhan oo 30 sano ayata maxaa la yiraahdaa ka fikir intaas opportunity ku dhaafday oo ilaahay uu ku sii lahay muu jeedid laakiin mid kale wadanka canshuura laga qaadayo xataa bixinaysa ina wadankii hadii labada luqad ku joogsatid waxa ka noqon kartaa maaragtay mas'uuliyiin wadanka oo waxa soo bixi karta oo 30 sano qof wadankan joogay waxa la rabay inuu Soomaalida kale imaatay qofkii waad laayay xataa oo ahaado meel waaweyn oo ka shanqaro waxa soo dhan marka waxa ka umiyay maaragtay geedi ilmahan korooy ma ho meeshan culture-kii afkii yaqaanin adiga afka ma taqaanin waxa idin si kala dheereenayo waa ani had sahamkin on maxaa la yiraahdaa kula hadlaayo kalento erey badan af finish aan soo daraa waa ifahmi wixin ka wad laakiin hadii oo isfahankaas uu jirino waalidka oo afkaas ka siinin waxa ma haysaa darbi camal inuu u kala dhaxeeyo darbigaas waa si weynaana le waa si weynaana sababtoo ilmahan biro si weynaaday guru ma deganaanayo meel kale uu dagaa nolol kale uu leeyahay taasaa keenaysa xataa inaa ilmaha ku daba dhegannahay maaragtay oo 30 jir oo waxaa arkaysaa ilmaha shaatiga hooy qanjar muxuu kaaga leeyahay keen aan dhaqe keen ayeele waa la isku wada dhegan taas taa cabsida oo ka cabsanaysa cunugiisa ku ahay maaha oo sibilniine mugo ka sii weynaad oo aragtid inuu nolol kale si yeelanayo oo adig kuu baahneen inaa soo celisida marka rabtaa oo wili kuu baahnaa sidii 5 jir mugo ahaa kale oo 5 jir mugo yaa wax ka soo ka baahan sidii yaa rabtaa marka wili waxa ka cabsanay inaa dhahdid weynaa ama حكينا قرع بسلاس إنه ويناد عنق على كعبسه. كنترول ما هيسد ما هذا وهذه عنق مكوبة هنا ما فهمت. وإحنا مكور سنة أو نولش كوساب سنة. Of course ويسباهن دين لودينا. بيلكي والد كها. بيلكي والد يسباهن لكن واحد ماتيريال كودا أنا عنتو سميسد إنا سوق جيسد إنا أقبيسد. إنا محلي هذا إن وحي أو كوساب سن financial أو كلامه. هذا أنا ما كفكرنا ما هو محلي هذا عنتو ما كانوا بحنا إيو إن qadka iyo korontada iyo waxaas lacagtii lagu bixi lahaa waxaastan bis anaka micraajo kale intaado shaqadeeda waxa la yaabay inay soo kacdo cuntada la siiyo loo soo dhaqo wax kasta anaka gacanteena ugu jiraan marka maxaa li waalidka waxa maleynaa inuu intaas rawili controlka markii oo sii baxay gacanihiisan oo laga sii weynaanayo qaraan anaga weynaadaan ilmaha markay weynaadaan waa markay oo adduunkan arkaan markay adi wixii ay haysay ay dareemi karaan haddii ka waran 30 sano 40 sano loo sii adeegay goormo uu dareema ilmaha ilmo la wiil dhahoyna xataa garka ay gool ilmo la dhahna ilmo ma yaani dhalinyaradan am qofkan weynaaday goormo ogaana inay mas'uuliyad saaranta oo adiga xataa waalid yaani mas'uuliyadii iyo waqtigii ay soo gelisay haddii banaanka uu u bixin ma arki karo wili ma dareemi karo fastu ma noqonayno mas'uuliyad ilmaha in loo furo inay sameeyaan qaladaadkaas laga baran karaan ay wax ka baran karaan mawduuc intaan kusoo gabagabeynayna sababtoo ah waxaan ku dhahay kanaaba aad u kala furmay oo dheeraaday mugta weliba waa soo I love tobigi kalenta oo baaqdayna insha Allah muuqaalada soo socda iyo markaan isku soo noqono ayuu ahaan doonaa maxaan kusoo gabagabeynay gabagabadii gunaanudkii waxaan kusoo gabagabeynaa
canshuurtiina iska bixisiin insha allah podcastigan si fiican u daawatiin gaarsiisiin 1 million haa kii hore xoogaa hurday caajisa idinka dareenay dhib male qof walba shanigiisa qoorta ugu jiro anaga marmar waana waysiin haddaa aragtiin wax oo 10 daqiiq ka badan allergic in UK podcast waa mahoka maxaa sideeda baaran haa maxaa la yidhaahdaa waxaan xasuustaa youtube-ka markaan ku cusbeen oo 30 daqiiqada baa gelisaa laakiin markaas oo kacaysin oon kacayni 30 daqiiqa markaa geli jirteen oo lagu dhahay 30 daqiiqa naga dhaafay warka naga yaray soo gaabi haa dadkii waa wada degdegsan yihiin dadna runay u degdegsan yihiin dadna beenay u degdegsan yihiin haa laakiin 24 hours maxaa la yidhaahdaa degdegsan tahay 24 may dadka runta u degdegsan waqti way helaan wax iga mashquul badan maa jira ana hadda waxaan rabana waa daawada waxaan rabana waa arkaa waxaan rabana waa 30 daqiiqo waa fiirsan kartaa hal saac aan fiirsaa hal saac i baran waxaa laga yaabaa tiktok hataa intaasoo video markaa fiirsanaysa inaad 30 daqiiqo ku jirtid laakiin aa ogeen oo yaryariiskaas oo ku waxeenayo marka indhaha isku qabay fiirso insha allah waa idin salaameynaa channelka subscribe noo saara share noo dhaha like-ta ku booba commentiyada noo soo qora waxyaabaha aad jeceshiin sidaan oo kale inaan ka hadalno topic muhiim ah soo qora muhiim adoo ahayn hataa anagaa micnaynayno cusbo ku dareyno haddii muhiim ee la yiraa qof muhiima ayaa laga yaaba inuu arka ka ama muhiim ee wax kasta muhiim waa marka open soo qora waxa leh xun naaya marka insha allah waa idin salaameynaa intaas iyo nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.